السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad nagala socotaanba daawadayaal waa janaalka bishaara dheeman. caawa waxaa marti noogu ajilaada weyn ee soomaaliyeed ciddi taqaano amran nakataa jilaada weyn ah ciddi taqaano amran nakataa kusoo dhowow janaalka bishaara dheeman. waa mahadsantahay bishaara dheeman, waan dhowahay asxaabtaadana aad baan u salaamay. hadda la sheerka ilaagay commentiga subscribe-ka hadda gabadha lagu caawiyo oo adiga saar oo fiirsanaysa sii gudbi asxaabtaada la sii wadaag. daawadayaal amran aad baad u mahadsantahay. daawadayaal waxaan inaga codsanaynaa subscribe-ka iyo sheerta siday walaasheen sheegtay. qofkii suulasha xanuunayaan hataa waa inuu carabka ku riixo. daawadayaal kusoo dhawaada. amran baan waraysi xiise la caawa la leeyahay. waraysi xiise la wey caawa ila sheekayso waaya. amranay kusoo dhawow barnaamijka bishaara dheeman youtube. dhawaa macaanteediyey waana mahadsan tahay. warka isiiba maxaa haysaa amranay? horta wax badan baan jeclaaday inaan sheekooyin xiiso lahoo badan oo madaxayga kusoo lalaabtay oo aan wax badan aan rabay inaan dadka waraysto ama gabdhaha jilaayaasha soomaaliyeed. annaga oo naga sii fikrad badan abwaaniinta ah. abwaan minahine may hadi jilaa waa iska abwaane ayna waraysto abwaanada ku qaraabta ayaga u taalaa sax. inaan ku waraysto caawa waxaan jeclaaday horta inta badan raggii soomaaliyeed gabdhihii soomaaliyeed iyagoo 15 jir ah yaa garoob laga wada dhigay. haye waa iska calaf inkastoo ay calaf tahay waxaan jeclaystay gabdhihii ragga ama naagaha waaweyn lahaa ee bahyaraha ka dhigtay inay dhahaan inta badan adaa fududa iska bax. waxay ku dhacdaa amranay adaa fududa iska bax. sideedaba geedkii waxaa layidhi orod lagu qoro orodaa loogu soo degaa. ninkan horta rabta afar ilaahay u baneeyey hadduu nin karti yahay karti leh oo isdhahay allay leh maanta kartiyaa leedahay islaamahada waa kala dabara kartaa waa nin fiican waa ninka loo baahnaa oo mas-uuliyadda qaadi karo. ninkaana qaadi karinna bartaada iska joogaa layidha. aniga waxaan qabaa iska bax markii la dhahaayo ebile iska soo galay kusoo gashano may amranay kuwa badan iska gal aan kusoo galinoo waalidkooda bixiyey oo maxaa la dhahaa ayagoo yaroo 13 jir ama 12 jir ragga loo aroosay ama midda ugu weyn ay 18 sano ama 17 sano jirto yaa loo aroosay raggaas oo lagu daray gabdhahaas la aroosiyey. marka gabdhihii la guursay oo gabar mustaqbal awalba aabeed marka laga soo danto uu bixin jiray ama sida dhaqanka soomaaliyeed ah ama diinta islaamka ay qabto ilaa raggi maxaa keenay gabdhihii inay wada furaan oo ay garoobo ka dhigaan. horta qof walba calafkiisa u cunayaa si wanaagsan. kaleetana waxa weeyaan gabdhahan waxaa la rabaa meeshaad gelaysid waa inaad ka tirsataa. horta qof walba calafkiisa u cunayaa. gabadhan wiilka kala tegayaan waa calaf, gabadhan wiilka isguursanayaan waa calaf. waxaan oo ilaahay qorina maba dhici karaan waayo wax walba waa qoraal. saa aniga tahay qof walba meeshiisi ayuu ka wadanaya. laakiin tiirka markii la adkeeyo dhudubada markii loo adkeeyo maaragta si wanaagsan marka dhudubada la adkeeyo guriga markii la dhisaayo ma leecaayo. laakiin haddii dhudubada fudad lagu geliyo meesha waa leecayaan. ninkan soomaaliyeed ama wiil gabadhan soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inuu ka qarinayay xaaskiisa weyn sax oo gabadhan yartaa la dhahay reerkeeda aniga gabadhan qabaa islaamihiiyo aniga waxaan usoo taagnaa qiso cajiib ah oo gabar ku dhacday ama saaxiibaday ama gabdhahan isnaqaano badan ku dhacday oo waxaan usoo taagnaa gabadhii markii naagti weyneed ee ilmaha u haysay ninkaas ay masayrtay gabadhii la dhaho naawalaal adaa fudude iska bax oo waan ku furay aabaheed gabadhii uu ninka ku daray ee mustaqbalka aragtay loo sameeyey saa artay loo guursada quruxda badan. gabadhii markay gabadhii weyneed masayrtay in gabadhii yareed la furo yaa meesha ka dhacday. marka ani qisada cajiibta badan baa horta aad madaxayga ugu soo noqotay. marka caawa waxaan isdhahay walaasha amran la wadaagtay halkaad u wadida waa kula fahmay. si wanaagsan. ninkan horta qof weyn ma ahay oo mas-uul ah, qof oo xil qaadi kara ma yahay, qof oo awoodo laba horta lagu galaa nimanka naagaha qabo. si wanaagsan. waa inuu ku dhaho iqari sax oo adiga ku gashidoo isqarisid aba oo istiraahid alle ninkan maanta iqariyo ku dhahay dee maxaa ku qarisaa dee af wax un hesho hadduu ninkii wax ku siiyey waa qarine. amran ay ninka la qarinayo adoo raaliga ah oo ku dhow barnaamijkii
gabagabadiina hadda aan taaganahay alla raalliga ah gabadha ayada ninka haddii la heshiiso ama ayada ay shukaansato waa la dhihi karaa gabadhan qari ninka uu dhihi karaa ilaa gabadha ayadoo yaroo 12 jir aabeed laga soo doonay ayadoo 13 jira ninkii loo aroosay maalintii asaga ay ku kor qaangaartay oo weynaatay oo ninkii naagtiisa ilmaha lahayd ay maseyrtay inuu dhaho gabadhii maxaa keenay gabar yahay waad furan tahay maxaa keenay adiga su-aasha waa igu soo celisay aniga waxaan ku dhahay horta reerkaas oo gabadha dhiibaayeen iyo wiilka inay ku heshiinaa laga yaabaa naagteyda iyo maqlin صح gabadhaas saqiirkaana waxba ogeyn si wanaagsan gadaalna lagu ogaado dadka say wax u sheegaan way yaqaanaan laakiin si wax u qariyaan ma garanayaan haddaan ku fahma amranay waa runta gadaal waaye xagga waalidka in ayaa laga yaabaa adeer gabadhaada isi hana sheegin intay wax ka dhalayso in lagu siiyaa laga yaabaa gabadhaas haye waayahay gabadhi odayaashii way heshiiyeen oo gabadhi ninkii wuu guursaday gabadhi yareedna waa la furay odayga muxuu ka faa'iiday gabadha dhalay والله wuxuu ka faa'iidayaa male laakiin balan war waaya Soomaalida dhahan maanta balanta qaarkood dadka Soomaalida balan war waaya dhahan laakiin ma aaminsan balan war tahay waxa aniga adiga isku ognahay adiga aan ku heshiinay gadaal haday ka xumaato waxa la yiri labadii isdagaashaa la yiri waxaan isla qabsanayeen sax heshiiskoodii dambe heshiiskoodii hore ayaa xumaa kaanta laba meel daba socda daartid laba daartid isla shaqaysanayso isla socoto isla ceeshiiso waa laba isfahanshano dadabada ay ku heshiiyeen ay hore u adkaan si wanaagsan marka aniga waxaa qabaa gabdhaha furi walaalo hal is qarsada anaga ka soo horjeeda ugu yaraan waa inuu dadkaada ay og yihiin hadduu rabo naagtiisa xunta ka qariyo sax ya laakiin dadkaada hadday og yihiin adiga haddaa qof garaad la tahay waa is celin lahaa laakiin gabar yar ma isma celin karto gabadha yar isma celin karto gabadha yar aqliga uma kala bixin maalinta gabdhaha ay yaryar yihiin horta aqligooda iska yar bar hadda 20 dhaaftid laakiin aqli kuma dhin maya gabadha hadday 20 gaarto ay 20 iyo dhowr sano jirto waa naag weyn oo reerkeedii meel ka qaban karta ama ninkeeda waraysi la yeelan karto ama ninkeeda caawa dhihi karta walaalo caawa waxba iska kaa bedelay say wax ka yihiin ama ninkeedii siday macnaha maskaxdiisa u dajin lahayd isagoo daalan ama asagoo caraysan oo lagaba yaabo in meel kala buuq kaga furan ama shaqadii soo daalay ka dhaxgal barwaaqo barwaaqsan bishaaro marka hore gabdhaha ma aragtay sax hadda gabdhihii hore horta anaga markaan ahayn waxa ma ogeyn si wanaagsan hal gabdhaha qaarkood waxaa dhici kartay markii rotaashka loo gelinayo qol ninka intuu soo galo dharku iska bedelayo maxaa walaalo horteed ugu libsan ay gabadha big dhihi jirtay si wanaagsan hadda laakiin naaga hadda akhri jiro 10 jirka sanadkan jiro ka carari jirtay big dee wallahi na been ku sheegin aniga waa soo marna ma fahanti gabdhahan aniga wax naga dambeeyay gabdhaha hadda akhligooda waa ka weyn yihiin laakiin dadkii hore ma sheegin oo iska suufiyaasha ahaa sida anaga kaleeto markay roosaayo kaleeto aada u yaryareen waxaas ma fahansaneen marka gabartii waxaa la arki jiray ninkeeda kasoo carabtay inuu ninkeedii xataa u manaynin walaalo waa qaldan tahay bag dhahayso laakiin hadda naaga shayta wajirka ayaga nimanka raadsan hadda ayagiba waxaan ku yiri rag iyo wadada maraya telefoon iyo qornay gabar yar waxaa arkaysaa aniga waxa isku quurayso waay gabar yar maxaa laga qarinaa aniga wallahi nin qarinaa inaan gabar yar baa la qarinayaa wallahi ana habar baa maanta ilaahay ii qor inaan guursado wallahi nas qarinayaa waay walaalkeen inay ugu meerin maba u malaynin nin walaalka kugu meerin horta nin ma aha mideeda kale waxaa la yiri gabadha wali la'aan ma mehersanto meherkana wali la'aan ma dhaco marka adiga waxaan ku leeyahay sheekadaas hadda waa isla qaadanay barnaamijka hadda waan isla wadnay gabdhihii hadda maxaan ka dhihi karnaa ama raggi maxaan ku dhihi karnaa hadda oo tala ahaan gabdhihii ala kulli xaal waxa lagu heshiiyey qalab ma keenaan laakiin gabdho qasqariska iska dhaafa guurka qarsoonida ha la iska ilaaliyo haddaa la deynaynin xataa maarkano ugu yaraan ku sii heshiiyey si fiican u heshiiyey si aan hadhow la isku furin oo furitaan iyo naagteeda ku maqashay iyo warayaa ka jooji gabadha adigana naagtaada saas aad ka jooji si wanaagsan amranay hadda barnaamijkina gabagabo noo yahay maasha allah horta waad mahadsanta walaasha qaaliyay barnaamijka bishaaro dheeman youtube waad si fiican ma kugu soo dhaweynay aad baan u mahadsantahay caawa bishaaro dheeman waa mahadsantahay aniga qof kasta walaalkii oo Soomaaliyeed oo yiraahdo maanta youtube-kayga ka raba dadka qaarkiis laakiin ma galo si wanaagsan aad baan mahadsantahay maanta walaashiya tahay waa ku xushmeeyaa maasha allah gabar iga yaraa tahay youtube saada waa kula soo kala kicinaa insha allah ilaahay yiraahdo aad baan mahadsantahay marka walaasha kale oo iga baahatid oo kaleeto hadda
shaqadana iska badan tahay may hadda waqtigaan ugu soo gaabtay ana aad baan ag fadhigaa aan ugu xiisaysnaa in mar walba uu jeclaa inaan ku arko on kula kulmo kulankaadana aad baan ugu faraxsan oo la shaqaaleeyay maxaa la dhahaa barnaamijkana gabagabo noo yahay kusoo dhow mar kale oo xiise leh insha allah waa soo wadnaa wax insha allah maxaa la dhahaa taageerayaashayda iyo dadkayga igu xiranbo iyo dadka ku xiran maxaa la dhahaa walaashay aad baan inii soo dhaweyneynaa waa iniga mar walba meeshaad nooga barateen waxaad nooga barateen like share commentiga subscribe-ka waan ka ballanay saaxiibayaal ha mar walba waxaan inii soo dhiganaa barnaamijyo kuwan xigo oo ka xiiso badan kusoo dhawaada ana miskiina iska ahay dadka isla weyn ma maasha allah qofkan hadda soo baxay maya qofka lama liido maxaa la dhahaa qof walaalka maxaa la dhahaa gabdhahan waa isku baahan wiilashan waa loo baahan yahay mar walba Soomaali horta iyo dadka islaamka meelna kuma kala maarmaan sida iyo nabadgelyo iyo warkan warka xigo xiiso leh insha Allah